xuska maalinta dhirbeerista Somaliland ayaa lagu xusay magaalada Cerigab ee xarunta gobolka Sanaag waxaana munaasabad kooban lagu qabtay xarunta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Sanaag ka soo qayb galay maamulka gobolka Sanaag kan degmada Cerigab iyo mas'uuliyiinta wasaaraddaasi. waxa maanta xafladeenani ay tahay waa maalintii deegaanka uu asteeyay dhirta uu tacabka badan soo geliyay sanadkiiba mar baa la xusaa marka la xusaana waa bisheeda waxa weeyaan 15 Abriil ujeedada la leeyahayna waxa weeyaan in dhulka la dhireeyo waxa la geliyaa dhirta tacab badan bay wasaaraddu gelisaa waxa loo baahan yahay iyadoo la sooman yahay oo hadalkana loo badan yahay aan gaabid doono cidii nasiib u yeelataa inay dhirta ka qayb qaadato in ay dhirtaasi inay dhiman in dhulka la dhireeyo in tacabkaas aan la khasaarayn hadday xeeb tahay iyo hadday buur tahay iyo hadday bannaan tahay dhammaan markaa waxaanu leenahay bulshada weynta ku dhaqan gobolka Sanaag hadday xeeb tahay iyo hadday buur tahay hadday bannaan tahayba dhirta maanta aanu bixinay cidii ay soo gaadho Ilaahay nasiib u siiya wayna ka faa'iideystaan ku ayna beertaan gaar ahaan waxaan ku sii boorinayaa degmada Cerigab iyo degmada Ceelafweyn oo dhirtu tribkan dhex taalo 10,000 oo geed baa Ceelafweyn yaala inay dhirta beeraan oo magaalada taasoo madkan ku beegantay maanta ku beegan sanad kastana dhacda alxamdulillah waxaan aad ugu faraxsanahay sanadkan oo aad u sii ay sanadkii hore ka sii qurux badan tahay inkastoo duruufo jiraan oo dhibaatooyin abaara jiraan oo biyaaraan jirto kullayba arrintu sidii hore noqon mayso sababtoo waxa weeyaan markii hore miyada waa loo bixin jiray tuulooyinka loo bixin jiray dhulkii maanta la geyn jiray maanta la geyn maayo sababtoo ah biyo ma jiraan wax la cabaaba leeyahay marka meel biyo dib la geynaya ma jirtay inta lagu waxa weeyaan inta magaalada iyo meelaha muhiimka iyo hay'adaha dawladda ama dawladda hoose iyo xafiisyada dawladda iyo hay'adaha ciidamada kala gedisan ayuu baa horta muhiimadda la hubaa inay maanta waxayn karayaan oo ay beeri karayaan dhirtii waad aragtaan oo waanu beernay dhirtaasu ciyaar kumay bixina waxay ku baxday lacag iyo taab dhowr nooc bay ciideedu xitaa isugu jirtaa kharash badan bay ku fadhidaa waxaanu kolley wasaaradda haddaanu ay ku dadaalaa ta dhulka ku taalla inaannu ilaalino mid cusubna inaannu soo saarno oo beerno sidaa la socotaan dhirtu waa nolosheenni weeye waa caafimaadkeenna waa hawadeenna waa roob soo jiididkeenna waxaan leenahay marka tanna ha la beero oo ciddii biyo haysa ee beeri karta baa la siin doonaa aad baanu runtii wasaaradda deegaanka uga mahadnaqaynaa tacabka ay qabatay iyo dhirta intaa leeg oo ay beertay iyo waliba dadaalka ay ugu jirto inay gaarsiiso dhammaan gobolka oo dhan runtii aad iyo aad baanu uga mahadnaqaynaa sida ay sheegtay wasaaradda deegaanku dhirtan aynu aragno dee tacab badan ayaa galay shaqo badan ayaa ku baxday cid walba oo u baahan maanta oo rabta inay ka faa'iideysato sida la sheegay waa lagu dabageli doonaa haddii Ilaahay idamka ka dhigo oo aanu ka qayb galay dabargooynta lagu sameeyo dhulka iyo deegaanka waxaanu wax ka qabanaa goof darar weyne fuqufuliye ciidamada qaranka ee jooga goobahaas oo dhan waxay ka qayb qaateen inay joojiyaan dhuxushii dhulka laga sidi jiray Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa waan ku guulaysanay ciidan qaran ahaan subhanahu wa ta'ala marka labaadna insha Allah waxaan u mahad celinayaa wasaaradda deegaanka oo iyaduna keentay dhirtan faraha badan ee insha Allah lagu beeri doono degmada Cerigab annaga ka dawlad hoose ahaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu ka qayb qaadano ama plaankayga u badnaa waxa ku jiray inaanu dhirayno magaalada insha Allah waxaan rabnaa hadii Ilaahay raali ka dhigo oo magaaladu ay deeynoo dhirowdo in shacabkuna ay ka faa'iideystaan oo dhirta ay ilaashadaan waraabiyaanna xoolahana ay ka ilaashadaan si magaaladu ay dhir qurux badan iyo bilic fiican inoogu yeelato wasaaradda horumarinta deegaanka runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan ognahay inay hayaan dhir fara badan
oo ay yaalliin dhowr meelood dhirtaan ay ugu talagaleen bilicda degmada Ceergaabo ama gobolka Sanaag aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin innaguna waxa waajib ah inaan tacabka khasaarayn ee aynu dee halkaa ilaa waxaan iskama soo bixine hawl bay ku soo bixeen oo kharash bay ku soo bixeen oo dadaal bay ku soo bixeen oo shaqay ku soo bixeen innaguna in wixii dib ma weelayno oo hagaajino ayaa inagu waajiba waa munaasabadii dhirta madal walba hadal bay leedahay waxaad moodaa dhir aad u qiimo badan kollaba dadka dhirta yaqaanaa dhirtani waa dhirtii hadhka u badanta dhirna waa dhirtii midhaha waxaan filayaa marba niyadda waxaan ka idhi wasaaraddu dhir wanaagsan bay ii keenteen wallaahi dadkii beeri lahaa warwar badan baa ka jira xagga dhirbeerista laakiin wasaaraddu aad bay ugu ammaanan tahay sanad walba iyo saacad walba inay keento dhirtii ay ummaddu u baahnayd dhirtu waxyaabo badan bay faa'iido u leedahay dhirtu bini'aadanku waa hadhsadaa oo waxbuu ka goostaa oo waad og tihiinoo roobka xataa laftigeeda meelba meesha ka dhir badan tahay raxmaadku wuu ugu badan yahay warsame kaafi cabdirashiid aadan wararka Ariel TV Ceergaabo